أنا مرة كمان لي هذا إلى كهل حقي عدالته ما أنا كبقى مرة كجبناي حبل هدي ومدخل يقطعله لما تحبل يقطريو وحارون بريا حقه وحارون بريا عدالته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء نقابل خالي وإذن سلام دمانتينا جنال كايقدام نستوى قابل خالي جنال فضلا هدا يقول سبتاي سوء دهو هدا هوري إلا سوءتنا آذا أمهد سنتهاي وحاروا إنا كهدلو لباتلو جيستي ويل جوغ دلك كينيا سا أكتهم بويقي هدو قدام بي وحا سوشيال ميديا كسوعدي اسخب خبسي فنانك شرمبوي iyo nin kale si kale markii wax loo qaadi waayo waxa hub loo adeegsaday wiil oo haay janalka Sharmaboy baasurkiisa si oo markaas u wareejiyo kadib waxa lagu qasbay Sharmaboy inuu raaligelin ka bixiyo qalad oo asal lahayn si oo bulshada markaas loogu bahdilo ama sumcad xumo loogu rido muddo kadib Sharmaboy oo oonaya YouTube soo fadhiistay asoo ka hadlaya dhibaatada loo geystay iyo guud ahaan dhalinyarta dhibaatada lagu haayo dad badan ka soo falceliyeen wilkana waxa kamid ahaa dhalinyarta oo ka soo falcelisay isla daawano sababta loo dhibaatay diga waxa idin la hadlayo oo nasaan u dhaawacan way maxmaamiin yahay asxaabay waxa igu dhacday arkii ii dilay waxa waaye maadaama aan cadaalad iyo xaq ka hadlay oo aan ka hadlay runta jirto ee Sharmaboy iyo Deeq Darji loo geystay waxa dhacday maanta markay saacad baraysay halka saac haweenimo waxay soo wacay dhalinyaradaas ka koobnaayeen 8 qof waxay yiraahdeen walaal Shaqbaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yiraahdeen biyaa la hadlayla Shaqbaaba markaas ku yiri haa waa diyaar bustii aqoon ab u lahaa waxa dhacday in la yiraahdo brother waxa rabaa inaan kula hadlo ara oo kulkulba aan kula hadlo kala hadla arrinka Sharmaboy iyo waxyaabo ku saabsan waxa yiri brother diyaar waay wuxuu ka qabi waxa dhacday dhalinyartii ila u tago markaan u tago inay gaari igishtaan oo yiraahdaa brother inta ku soo wada hadlayna inabad waxay anigoo baabuurka ku sii jiro waxa liigu korwacay dik la yiraahdo Axmed Rashiid markii liigu wacay waxay yiraahdeen intee joogtaa waa ku ibaarayna anigu waxa siri hadii aad gabtid ama hadii aad cabsi aad isgelisid waxaad iska dhigaysaa qof dambiile ah ha iska dhigin qof dambiile maadaama aad dambi lahayn because Axmed Rashiid wuxuu howshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah raga wax dhaco raga doorida wato iyo raga biskoolada wato aniga intaasi kama saabsani mara ku jiri waxa la ii soo kaashtay dhalinyartii markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribe la dhaho Jam Street Al-Hayat dhalinyartii waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid ka mid ah wajiga uu iga haraantiyo markaan kacay aan u geegsan waayay aan gacan u qaaday oo isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib wala iskiigu kaytay dooriya leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay wala iskiigu kaytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeyay waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidii reerkatiriba waxaan isiri brother waa dhibatay intaan la dhimanin ka hore geestirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday geesi garab waayay oo mataqaanayo weel iska saari waayay kadib waxaa dhacday in oo mataqaana baabuurka markay gistaan ayagoo hanjabaad iyo wax walba wadaan iyo ribaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaa dhacday inay dhahaan yar la yiraahdo Cadnaan Model iyo inta ma jeerteen abadan waxaa balan waa inaan meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo la jeerteen ahayn waxaad ma jeerteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif ma jeerteen waxay ahaayeen dad awooyaasheena xirxiray dad awooyaasheena gumaaday iyo gacaqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxa la ii geeyay ninka Axmed Rashiid ahaa markii Axmed Rashiid la ii geeyay inta Axmed Rashiid la ii geeyay ka hor baabuurkii tay igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen waxay yiraahdeen waxa next ah oo kugu xijireena dhikli yiraahdo Cadnaan Model maadaama uu yahay ma jeerteen marka waxa dhacday wallahi aada ugu xumaay wiilkan dhibka loo geystay wax oo sabab oo hadda muuqato oo lagu dilina uma jeedno inta ma jeerteen abadan waxa balan waa inaan meel saaro oo magaalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigoo la jeerteen ahayn waxaad ma jeerteen oo daba dhaqlaynaysid
waxaa tahay dabadhilif majarteen waxay ahaayeen dad awoowayaasheena xirxiray, dad awoowayaasheena gumaaday iyo gacqaad fara badan. dhalinyartaasi dhammaan waxay ka koobnaayeen dhalinyaro ogaadeena. way soo kaxeeyeen, waxaa la ii geeyey ninka xabarshiid ahaa. markii xabarshiid la ii geeyey, inta xabarshiid la ii geeyey ka hore baabuurkii inta igu wadeen hajabaad badan ay igu wadeen. waxay yidhaahdeen waxaa next ah oo kugu xijireynaa ninka la yidhahdo cunaan model maadaama uu yahay majarteen. marka waxaa dhacday ina ay isoo wareejiyaan askari la ii geeyo. askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad, waa lii dharbaaxayey, waa lii feerayey. kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo, kadib in la ii geeyo ninkii ahaa axmed rashiida. markii la ii geeyey wuxuu yidhi wuu ka naaxay wejigeyga iyo dhaawacay saaran. wuxuu yidhi anigii raalli kama ihi, waxay soo wacday maamada hooyada, laakiin raalli kama iyo wax lagugu sameeyey. waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn maxaa kugu kalifay inaad mataqaanaayo aad ii soo adeegsatid dhalinyartaasi, adigoo awood u laha inaad ii imaadid oo aad ila hadashid. wuxuu yidhi waa ka xumaay, waxaa u malaynaya inay ii keenayeen. dhalinyartaani waa dhalinyaro oo ahaan jiri superpower, waa dhalinyaro oo mataqaanaa intii la laayay kasoo xirtay. waxaana loo laayay ay ahayd qabiil darteeda. waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gumaad iyo mataqaanaa qawawac. dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xaddhaaf ah. awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaadeen ka taliyaan ani ahay dabadhilif majarteen, maadaama aan gabar majarteen wax la sameynaayo, aan wax la jilaayo, aan muuqaal la duubaayo. marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan toori ayaad wadataa, toori ayaad igu dishay. ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan toori ayaad dadka ku dishaay ama toori ayaad wadataa. waxay yidhaahdeen calaamodel iyo dhalinyaro oo asaga dabaraacsan haddii nabad ku noolaadaa magaalkan anaga rag marihin. waxaa dhacday in axmed rashiidkii uu dhaho waa ka xumaay waxyaabaha falkufooshu lagugu dhibay markii lai dhaawacay, lai jugeeyey, wejigeyga dhaawaca lai saaray. waxba iima taraysa raalloqo, waxbana iima tarayso. axmed rashiidka sheegaa waa ninka oo deeq darajamada bastoolada uu qabta waaye. shalay xataa waxaa arkaya viidi yar oo laga soo duubay asoo wiil Soomaali dilaayo. marka ilaaha ka qabta dhalinyarada. waxa la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo sharmaboy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda. wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mataqaanaayo oo qabiil iyo waxaas diriyo. aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal. aniga ma baqaay, waxaa ballan qaadayaa, waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilanayo. haddii aan samaynina hooyaday xakiimo aadan faarax oo siday igu soo korisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinaystaa haddii aan maanta aarsanin. daawadayaasheena qeybaha qadirinta mudan, dhibaatadaani waxay ii soo martay oo lala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay. anigana marnaba kama leexanay inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda, mana ka baqday mana ka gabanay. xabado haddii oo mataqaana igu taalo 20 xabo la igu tiriyo, waxaan u dhimanayaa xaqa, waxaan u dhimanayaa cadaaladda. marka asxaabay dhalinyarta kaleeto loo soo socdo waxaan leeyahay ayagoona hadlin ayaa loo socdaa. is ilaaliya mataqaanaaye cadaaladna waa u baahanahay. soomaaliya haddii aan xishmad iyo mataqaanaaye wax walba aad iga haysid, aan hal maalin kaa qosliyey, aan hal maalin kaa farxiyey, tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeen. anaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaan baxaan ii istaagaan. taasi waxaa waaye waa baryo aa idinka baryayahay. waxaa ballan qaadayaa inta waxa igu soo gaarsiiyey dhaawac inta i gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naasa leh. waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waayo ilaahay inuu cadaabo jahannama salkeeda imari, ilaahu cadaabo jahannama salkeeda imari haddii aan aarsan waayo. aad iyo aada u mahadsan tahay. waa
Shukubaba dhibka loo geystay waxaa nasiib daro ah youtuber in loo dilo maxaa fiidiyahaas usoo qaadatay. Sharmaboy fiidiyihiisa youtubero badanaa ka hadleen wax oo qabiil ahaan ku difaacayaan ma arkin. Qof kasta Sharmaboy waxaa ku taageeraya Soomaalinimo iyo khadarada loola dhaqmay. Marka Soomaaliya qabyaalada iska daaya, dhalinyarta yaa maskaxda laga dilin. Waxaan rajeynayaa Shukubaba inuu heli doono cadaalad iyo garab istaag inta idan ka dalbaday iyo in ka badan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.